Maalin wanaagsan walaalayaal, waa codka abuur cusub iyo barnaamijkeennii Kibis Maalin ugu filan oo ay idiin daadihinayaan anigoo ah Nuur Xasan iyo xaaskayga Hoob Abuukar. Barnaamijkan waxaan ugu talagalnay inaan ku baranno ereyga Ilaah iyo sida uu u quseeyo nolosheenna maanta. Mowduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay nin xaq ah oo dhibtooday. Haye Hoob Abuukar. Mm, noo faahfaahi nin xaq oo dhibtooday. waa mahadsantahay aw nuur waa idin salaamay dhammaan dhegaystayaasha ina dhegaysanaya meel walbaad joogtaan. maanta waxaan rabnaa inaan qaybsano mowduuc ah nin xaq oo dhibtooday. masaalo badan ayaa waxaan ku maqalnaa ayuub, sabarkii ayuub. marka waxaan jeclaysanay maxaa laga wadaa sabarkii ayuub, qisadiisa maxay ahayd, siduu uu u dhaqmaayey marka dhibaatooyin ku dhacday ayuub. waxyaalahaasaan rabnaa inaan tataabano iyadoonan ahayn qisada ayuub inaan ka sheekeynayno oo taas mar kale aan samayn karnaa. laakiin middan aan hadda aan rabno inaan ogaano yuu ahaa ayuub iyo maxaa ku dhacay. so haddaa aqrino kitaabka ayuub cutubkiisa 1 aayadda 1 sidaanay leedahay: dalka cuus la yiraahdo waxaa joogi jiray nin magaciisa ayuub la oran jiray, oo ninkaasuna wuxuu ahaa nin quman oo toosan, wuxuuna ahaa mid ilaah ka cabsada oo sharka ka fogaada. marka nin xaq ah waxaa ugu dan leenahay waa taa. waxaa lagu leeyahay wuxuu ahaa nin quman oo toosan, wuxuuna ahaan jiray mid ilaah ka cabsada oo sharka ka fogaada. waa labadaas arrin waayo ilaah mana xaqnimada waxa waaye inuu ilaahay qofka ixtiraamo oo ka baqo. waxa laga wada cabsida lagama wado kitaabka sidoo baqdinta ilaahay waxa waaye inuu ilaahay qofka ixtiraamtid iyo in sharta ka fogaado. marka xataa kitaabada oo luqadaha kale waxay leeyihiin nin righteous xaq ah. so waa u jeednaa ayuub inuu ahaa oo kitaabka uu ku sheegayo nin xaq ah oo sharta ka fogaado. inkastuu xaq ahaa oo sharta ka fogaanayay, laakiin ayuub waxaa ku dhacay dhibaatooyin badan. ayuub waqti yar gudaheeda, maalin gudaheeda ayaa maalka wuxuu ahaa nin maal qabo oo xoolo qabo oo ilmo qabo oo aad u dhaqan. wixiisa maalin kaliyuu waayey oo ilmihiisii iyo xoolihiisii wixiisi dhan hal maalin ku hantidiisii wixiisa waa burbureen maalin gudahood, ilmihiisiina waa baaba'een hal maalin gudahood. wax yar kadibna caafimaadkiisa ku darsamay oo caafimaadkiisa baaba'ay. marka ayuub inkastoo dhibaatooyinkaas dhan ay ku dhaceen, ayuub siduu ilaah u arkay. taasna waa tan mowduuca aan rabno inaan ku xirno qisadan ah hadda oo ayuub aan soo qaadanay. marka dhibaatooyin badan nagu dhacaan ama waxyaalo aanan fahmayn nagu dhacaan, sidee annaga ilaah u aragnaa ama sidee ula dhaqannaa ilaah? bal adiga noo sii faahfaahiyo, noo sheeg bal siduu uga falceliyey wixii dhacay. sida horta hadda aad noo taabatay ayuub wuxuu ahaa nin xaq dabcan in ilaah yaqaano ahaa. ayuub markii iimaankii ilaahay ku qabay kumaba xirneen xaalad uu ku sugnaa markaas oo ahayd xaalad adag. markii dhibaatada ay ku dhacday ayuub iimaanku ku qabay iyo dhibaatadii macnaha iskuma xirneen. oo ayuub mar walba iimaanku ilaahay ku qabay sida ka muuqata kitaabka oo dhan. guud ahaan ayuub ilaahay ayuu garanayay, sidaas daraaddeed wixii ku dhacay ma aysan gelgelin iimaankii ilaahay ku qabay. inkastuu bini aadan ahaa ayuub oo ku dhacday waxyaabo xanuun badan ku dhacday, haddana xanuunkii hayay falcelintii uu ka sameeyey waxay noqotay inuu ilaahay u sujuud ula yimaado. sida hadda aayaddan anoo akhrinayo kitaabka ayuub cutubka 1 aayadda 20 ilaa 22 waxay leedahay 20 ilaa 22 waxay leedahay: markaasaa ayuub sare joogsaday. waa markii akhbaarta loo soo sheegay oo ayuub oo dhibkii ku dhacay oo loo soo sheegay ilmihiisa inay dhibaato ku dhacday oo hantida dhan ka burburtay. markaasaa ayuub sare joogsaday oo huwiskiisii jeexjeexay oo madaxiisiina uu xiiray oo intuu dhulku ku dhacay ayuu sujuuday oo wuxuu yidhi hadalkanaan jeclahay:
wuxuu yidhi anigoo qaawan baan uurkii hooyaday ka soo baxay oo haddana anigoo qaawan baan halkaas ku noqon doonaa rabbigaa wax i siiyey oo haddana rabbigaa iga qaatay ammaan waxaa leh magaca rabbiga oo waxyaalahaas oo dhan ayuub inaba kuma uu dembaabin oo ilaahna eed kamuu sheegin ayuub annaga sidaa sheegaysa marka xaalad ay nagu dhacdo xaalad adag sida caadiga bini aadanka aan nahay xaalad adag markay nagu dhacdo waxaan sameynaa meelo kala duwan aan ku cararnaa oo bini aadanka ay ka mid yihiin oo hanti ay ka mid tahay haddaan hanti haysano ama qaraabo ama asxaab waxyaabahaasaan ku cararnaa ama dhakhtar markaan xanuunsanaa ugu dambeyn haddii qofka uu wax kale awoodi waayo nafteenaan ku cararnaa mar oo waxyaabahan hadda cudurrada laga qaado stresska iyo problemka qofka gudaheenaan ku cararnaa laakiin ayuub waxaan ka baran karnaa cashirka ugu weyn oo ka baran karnaa ayuub waxaa waaye marka ay xaaladda xumaato marka ay dhibaato nagu dhacdo yaa waaye qofka ugu horreyn ku carareen ayuub isla markii waxaas ku dhaceen ilaahay ayuu ula hor istaagay sujuud ayuub dhibaatadii ku dhacday xataa ilaahay umuu sheegin laakiin wuxuu xaqiijiyey uu dhahay ilaahay asaga ammaan leh waa run ayuub xaaladda uu ku jiray markaas haddii qof walba ku jiro at least ilaahay wuxuu weydiinaa maxaa waxaan iigu dhacay ama maxaa ilaahay waxaan iigu sameeyey hadduu ilaah jiro laakiin ayuub taas ma dhihin oo waxaa qoran wuu u sujuuday sujuuddaas waxay ina tusaysaa weynida ilaah iyo xikmadda ilaah inaan ku kalsoonaano haddana wuu mahadnaqay so wuxuu ogaaday ilaah midka uu yahay iyo asaga yuu yahay ila naftiisa xataa ilaah baa hayo naftayda aan rabo inaan ilaaliyo ama waxaan rabo xoolahayga ama ilmahayga aan rabo inaan ilaaliyo iyadaba ilaahay ku xiran tahay marka ilaahu uu orday sidaa sheegtay marka ayuub dhibaatooyinkaas ku dhacaayo waxa uu usii dheeraa dhinacyadiisa dadka jooga oo ay ka mid tahay xaaskiisii oo dadka ugu dhowaa xaaskiisii haddaan aqrino ayuub 2:9 waxaa arkaynaa wuxuu leeyahay markaasaa naagtiisii waxay ku tiri war ma welibaad daacadnimadaadii sii haysanaysaa way weydiinaysaa ilaahay maa daacad usii ahaanaysaa waxaan kugu dhacaayo dhan ma ilaaha daacad u tahay weli war hooy ilaah wax xun ka sheeg oo iska dhimo anaa arrin quusay u sheegaysaa waxay leedahay dee ilaahay waxaan ka sheegay iska dhima weli daacad maa ilaaha usii tahay waana qofkii ugu dhowaa xaaskiisa laga soo galay marka asagii ilaah wuu u cararay laakiin mararka qaarkood dadka agteena joogo codod badanaa maqashaa waxa aan soo xasuusanayaa atheistiga dadka atheistiga dhibaatadooda ugu weyn ee qabaan waxay tahay hadduu ilaah jiro maxay waxaan u dhacayaan oo dadka kale xataa ay ku dhahaan ay ku weydiiyaan naagtiisa hadda marka naagta le ma aha waxay noqon kartaa ilmahaaga waxay noqon kartaa waalidkaaga waxay noqon kartaa saaxiibadaada because ayuubba saaxiibadiisa u yimid isla markii naagtiisa ay saas dhahday saaxiibadiisa u yimid iyagoo xaq ah iska dhigaya oo dad oo ilaah yaqaano laakiin iyaga waxay qaladka saarayeen ayuub ayagana dhinac kale ka soo galeen naagtiisa maadaama ay tiri ilaahay u eed saar ayagana asagii eed saareen waxay ka dhigayaan dembigu kale dartiisa in loo ciqaabayo naagtiisa waxa ay dhahaysa waxa waaye inkir ilaah ila maba jiraba cay ilaahay iska dhimo haddaad dhimatid xataa dhibaato male cay ilaah ma garatay laakiin saaxiibadiis waxay ahaayeen kuwa dhahaayo ilaah waa saas laakiin ilaahay wuxuu dhibaato kuu keenayaa markaa adiga qaldan so waxay dareensinayeen guilt eedayn ayay dareensinayeen ayuubna wuxuu ugu doodayay war aniga dhibaato ma sameynin inkastoo qisada markaan sii aqrino uu ayuub markii dambe uu xataa isweydiiyey naftiisa uu cariiri galay uu hadlay ilaahay waxaas dhan uu ogol yahay hadda qalbi fiican ah ula tagno marka naagtiisa markay ayuub saas ku tiri midda labaadoo inaan fahano rabno
maxay tahay actionka bixi Haye. bal adiga noo soo maxsan tahay ayuub markii dhibaata ku dhacday ayuub wuu ka falceliyey sujuud iyo cibaado iyo salaad uu ilaahay la hor istaagay mar kale qofkii ugu horreeyey oo ugu dhowaay sida sheegayso xaaskiisa ah ayaa ilaahay waxay damcday inay ku dirto ayuub aayadda cutubka 20aad aayadda 10aad wuxuu dhahay sida ku qoran laakiinse wuxuu iyadii ku yiri waxaad u hadlaysaa sida naagaha nacasyada ah midood naawaa sidee ilaah gacantiisa intaynu samaan ka qaadano miyaynan xumaan ka qaadanayn oo inkastoo waxyaalahaas oo dhan ay ku dhaceen ayuub innaba afkiisa kuma dambaabin waan jeclahay aayadan sida isla aayadan iyo midda hore sida isugu xiran yihiin waayo midda hore waxay leedahay ayuub inkastoo waxyaalahaas ay ku dhaceen innaba ma uu dambaabin oo ilaah cid kama sheegin waa markii hore dhibaatada gaartay markan labaad oo qofkii la rabay inay macnaha si fiican ula taliso ee haddana u sheegtay inuu ilaahay la diriro ama ilaahay wax un ka sheego haddana mar walba waxay leedahay aayaddii haddana wuxuu reactionka uu ka bixiyey falcelinta uu ka sameeyey waxay ahayd inuu dhahay ilaahay samaan waan ka qaadanaynaa waayo wuxuu qirsanaa ayuub naftiisa iyo xoolihiisa iyo carruurtiisa waxa dhanba inay ilaahay uga yimaadeen oo annaga ilaahay xaq ah uusan ku lahayn inuu waxaan ka helo laakiin naxariistiisa iyo nimcada ilaahay ku helay isla markii marka wuxuu dhahay ilaahay waanan haddii uu ii soo fasaxay ilaahay waxyaabahan inay dhacaan waan ka qaadanaya marka ammaanta mar walba ilaahay ayuu u celiyey ayuub waa runta marar badanaa aragnaa annaga hadda masiixa u nimid dhibaatooyin waxaa naga soo gaara dadka dhinacyadeena oo aan aad u jecelnahay ay ka mid tahay nin naagta uu qabo ama naagta ninkay qabto oo dhahaya haddaadan ka tegin ilaaha aad dooratay ilmahaagan kaa qaadanaya naagta ifur ayay leedahay ama waalidkiya waxay ku leeyihiin yacni haddaadan ka tegin oo wax aan annaga rabno aan samayno oo sida annaga rabno ilaah u caabudin yacni waan ku goynaynaa dhibaatooyin marar badan waxay nooga imaanaysaa dhinacyada dadka noogu sukay ama dhinacyada mar walba aan qisadan aqriyo waxaa soo xasuustaa sidaasoo kale sida naagta ayuub ay ku tiri codkaasoo kale ayaa annaga xataa nagu yimaado oo marar qaarkood bini aadanka dhinac kasta uga yimaado ama cod uu maqlo ama naftiisa isweydiiyo laakiin muhiimadda waxay tahay ilaahay siduu ugu abaalguday ayuub haddaan fiirino dhammaadkii ayuub qisadiisu way dheer tahay laakiin dhammaadkii haddaan fiirino aan fiirino cutubka 42 kitaabka ayuub aayadda 10aad waxay leedahay rabbiga ayaa ayuub axwaalkiisii bedelay markuu saaxiibadiis u duceeyey oo rabbiguna ayuub wuxuu siiyey wixii uu markii hore lahaa laba jibaarkood so rabbiga axwaalkiis ayuub ayuu bedelay dhibaatadu ku jiray saaxiibadiis xataa halkan waa lagu soo qaadanayo saaxiibadiis way dhibayeen moogtahay oo waxay ku eedeynayeen inuu asaga dhibaato sameeyey dhibaatadiisa iyo dhibaato kale ugu sii darayeen waxay lahaayeen waxaan aad samaysay waa adiga dhibaato geystay adiga dembi leh adiga macnaha waa so ilaahay wuu u abaalguday xataa haddaan fiirino aayadda 12 waxay leedahay oo sidaasuu rabbiga ayuub ugu dambaystiisii u barakeeyey in ka sii badan bilowgii hore yani wixii hore uu haystay wax ka sii wanaagsan ayuu ilaahay siiyey isla markaa waxay soo xasuusinaysaa cahdiga cusub aayad dhiirigelin ah oo na dhiirigelisa waxay ku jirtaa Yacquub 5:11 kitaabka Yacquub cutub 5 aayadda 11 waxay leedahay bal ogaada waxaynu ugu yeernaa kuwa barakaysan kuwii adkaystay yani kuwa oo adkaysta oo dhibaatada oo adkaysta waa kuwa barakaysan ayaa loogu yeeraa kitaabka waad maqasheen adkaysashadii ayuub waadna aragteen dhammaadkii qasdiga rabbiga suu rabbiga dhibaatada ayuub ku dhacday qasdi buu ka lahaa marka wuxuu leeyahay waadna aragteen dhammaadkii
يعني صبركي أيوب إلهي قصدي جيسة آه. وايو ربيو ورحمة بدن يحي نحريسنا وليه آمين. سو ugu dambeyntii ayuub qisadiisa waxaan aragnay inuu rabbiga raxmad badan yahay iyo inuu naxariis badan yahay naxariisna uu leeyahay iyo mar walbana ilaahay dee anaga sida aan aragtideena gaaban oo mar xaaladaas inta xaaladda ay taagan tahay sidaas inuu ka weyn yahay ilaahay xigmadiisa oo ilaahay qorshe ka sii weyn xaaladaha aan marayno oo mar walba noo hayo casharadaas waan ka baran karnaa marka waxay ina tusaysaa dhammaadkii inuu ayuub sabarkiisa ilaahay laba jibaar ugu guday waxaana ka baranaynaa ilaahay naxariistiisa iyo abaalgudkiisa iyo inuu mar walba asaga yahay kan gacanta ku haya xaaladaheena waa mahadsan tahay hoob hadda waxaan maraynaa waan noo soo gabagabeynayaa marka sida caadiga ahna dunidan aan joogno dhibaato waan maraynaa dhinac walba ee ahaataba balse waxaa ogaataa inuu jiro ilaah run ah oo awood badan oo adiga ku jecel oo arrimahaaga danaynayo masiixa ereyga eebe wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka injiilka ah matayos cutubka 5 aayadda 4 waxay leedahay waxaa barakadaysan rabbiga wuxuu leeyahay waxaa barakadaysan kuwa baroorta waayo waa la qalbi qaboojin doonaa haddii aad doonaysid inaan kuu duceyno haddii aad doonaysid inaad masiixa wax ka baratid haddii aad noo haysid talo ama su'aal aad noo qabtid waxaa nagala soo xiriiri karaysaa emailkeena abuurcusub@gmail.com walaalayaal maanta barnaamijkeena intaas ayuu noogu eg yahay waa idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina qaaliga oo na siiseen nabadda masiixa ha idinla jirto dhammaantiin is arag dambe mar kale ismaqal dambe